السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا موجية جنال أصحابي waxaan rabaa halkan inaan idinku soo gudbiyo barnaamij yar oo taxana ah oo ku saabsan gabadha la dhaho Amina Al-Mufti. dad badan waa laga yaabaa waa yaqaanaan, waa gabar caan ka ahayd Carabta xilliyadii qarnigii 19aad. waa gabar basaasad Yuhuud u noqotay balse ka dhalatay dadka Carabta ah. marka mowduucaas ayaan rabaa inaan idin soo gudbiyo qayb ayaan rabaa inaan soo qaato, laakiin hadda wax yar oo hordhac ayaan idin soo gudbinayaa insha Allah. بذور الكراهية لا تنبت إلا شرا، فالكراهية لكل شيء كانت هي الباعث الحقيقي لتحولها إلى أخطر جاسوسة ضد أهلها. سافرت إلى النمسا لتحصيل العلم فعادت لقتل الحلم. Amina Al-Mufti jaajuusadii Yuhuudda jaceylkeedii fashilmay ayaa sabab u noqday in ay basaas u noqoto Yuhuudda. Amina Al-Mufti gabadhii xanaaqa badnayd. ku soo dhowaada qisada dhabta ah ee Amina Al-Mufti. Amina Al-Mufti waxa ay dhalatay 1939 miilaadiya. Amina Al-Mufti waxa ay ka dhalatay qoys hodan ah waliba muslim ah. aabaheed waa maalqabeen ka ganacsada dahabka, adeerkeedna waa jenaraal ka tirsan boqortooyada. hooyadeedna waa haweeney wax baratay si fiicanna ugu hadasha 4 luqadood. Amina waxay ahayd gabadha ugu yar guriga yaraan. Amina weligeed codsi lagama diidin gurigeeda, waayo aad ayaa loo jeclaa. Amina markay soo qaangaartay waxay jecel had dhaafa u qaaday wiil reer Falastiin ah laguna magacaabo Baasem. waa halkan meesha ay ka bilowday calada ay u qaaday Carabta iyo in ay ku fakarto in ay cadow ka xigsato dadka ay ka dhalatay. Amina Al-Mufti quruxdeedii cajiibka ahayd kuma aysan calfan Baasem, waayo wuxuu uga tagay xanaaqeedii xad dhaafka ahaa. sanadkii 1957 waxa ay ku biirtay jaamacadda Vienna ee dalka Austria, waxayna ka qaadatay Bachelor of Psychology Medical, shahaadada cilmi nafsiga. asxaabi mawduucan halkaas ayaan ku joojinaynaa maadaama taariikhda Amina Al-Mufti ay aad u dheer tahay. marka waxaan gartay inaan dhowr qaybood ka dhigno insha Allah. qaybtan waa qaybtii koowaad, qaybo kale ayaan ka soo sameyn doonaa insha Allah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waad ku mahadsantihiin daawashadiina.